Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dear students, welcome to Ilmi Online Academy. Casharka maanta waa casharkii 25aad. Casharkan waxaan ku qaadan doonaa numbers oo ah part 2. Casharkan waxaan ku baran doonaa numbers nambaro part 2 qaybtii labaad. Qaybtii koowaad waxaan hore ugu soo baranay casharkii hore. Casharkan waxaan ku baran doonaa numbers nambaro laga bilaabo 10 up to 100. Casharkan waxaan ku baran doonaa nambaro laga bilaabo 10 up to 100 ilaa iyo 100. 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 labaatan 30 30 30 30 soddon 40 40 40 40 afartan 50 50 50 50 konton 60 60 60 60 lixdan 60 waa lixdan 70 70 70 70 toddobaatan 70 waa toddobaatan 80 80 80 80 siddeetan 80 waa siddeetan 90 90 90 90 sagaashan 90 waa sagaashan 100 100 100 100 waa boqol 1 waa hal 100 waa boqol 100 waa boqol. Casharkan waxaan ku baranay 10 to 100 10 ilaa iyo boqol. Waxaa muhiim ah inaad garatid nambarada tiro tobanka ah, waayo kuwa kale way sahlan yihiin. Kaliya waxaad ku daraysaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kaliya waxaad ku daraysaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Marka waa muhiim inaad garatid sida loo qoro 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Haddii aad garanaysid intaan sida loo qoro oo aadna garanaysid nambarada 1 ilaa 9, waad garanaysaa sida loo qoro 1 up to 100 mise 1 up to 200. Casharka waan sii wadi doonaa. Casharkii hore waxaan kusoo baranay 20 to 30. Casharkii hore waxaan kusoo qaadanay 20 to 30 labaatan ilaa iyo soddon. Tusaale waxaan dhahnay 21 si aan u qorno 20 lagu daray hal. 21 waa 20 lagu daray hal. Si aan u qorno 21 qoraal ahaan waxaan looga baahan yahay inaan garno sida loo qoro 20 iyo sida loo qoro hal oo aan horey u soo baranay casharkii hore. Waxaan dhahnay 20 waxaa loo qoraa 20, 20 waxaa loo qoraa 20, 20 waxaa loo qoraa 20, halna waxaa loo qoraa 1, halna waxaa loo qoraa 1. Markaan isku xirno waxay noqonayaan 20 iyo 1 waa 21 21. Kaliya waxaa lagaga baahan yahay inaad garatid 1 ilaa iyo 9 sida loo qoro iyo sida loo akhriyo iyo tiro tobanka 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Haddii aad garanaysid intaas waad qori kartaa nambarada laga bilaabo 1 ilaa 199. Okay, waan sii gudbaynaa. Tusaalada labaad 22 si aan u qorno waa 20 lagu daray 2. 22 waa 20 lagu daray 2. Si aan u qorno nambarkan xuruuf ahaan waxaana looga baahan yahay inaan garno sida loo qoro 20 iyo sida loo qoro 2. 20 waxaa loo qoraa 20, 20 waxaa loo qoraa 20, 2 waxaa loo qoraa 2, 2 waxaa loo qoraa 2. Markaan isku xirno numberkan wuxuu noqonayaa 22.
22 22 22 22 20 oo ah 20 2 oo ah labo. nambarada aad ayay u sahlan yihiin luqadda Englishka hadii la fiiriyo. zaid ayay u sahlan yihiin waxayna la mid yihiin sida luqadda Soomaaliga. casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa 30 soddon to 100 ilaa iyo boqol. 30 to 100 soddon ilaa iyo boqol sida loo qoro. soddon iyo kow waa soddon lagu daray hal. soddon iyo kow waa soddon lagu daray hal. kaliya waxaana looga baahan yahay inaan garno sida loo qoro soddon iyo sida loo qoro kow. soddon waxaa loo qoraa 30. horey ayaan usoo baranay waxaan kusoo baranay qaybtii hore ee casharka. soddon waxaa loo qoraa 30. soddon waxaa loo qoraa 30. halna waxaa loo qoraa 1. halna waxaa loo qoraa 1. markaan isku xirno wuxuu noqonayaa soddon iyo kow oo ah 31. soddon iyo kow oo ah 31. soddon iyo kow oo ah 31. si aan u qorno 92 92 waa 90 lagu daray 2. 92 waa 90 lagu daray 2. okay halkan waxaana looga baahan yahay inaan garno sida loo qoro 90 iyo sida loo qoro 2. qaybta hore ee casharka waxaan kusoo barnay sida loo qoro 90. 90 waa 90. 90 waa 90. labana waxaan kusoo baranay casharkii hore ee 22aad. labana waxaa loo qoraa 2. labana waxaa loo qoraa 2. markaan isku xirno qoraal ahaan markaan u qorayno waa 92 kaliya waxaan qoraynaa 92 92 90 oo ah 90 2 oo ah 2. boqol iyo kow waxay la mid tahay boqol lagu daray hal. boqol iyo kow waxay la mid tahay boqol lagu daray hal. kaliya waxaana looga baahan yahay inaan garano mise inaan ognahay sida loo qoro boqol iyo sida loo qoro hal. boqol sida loo qoro waxaan horey ugu soo baranay qaybta hore ee casharkan. boqol waxaa loo qoraa 100. 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 halna waxaa loo qoraa 1 oo aan kusoo baranay casharkii hore ee 22aad. halna waxaa loo qoraa 1. kaliya markaan isku xirno wuxuu noqonayaa numberkan 101. 101. halkan waxaan kusoo kordhinay and oo aysan ku jirin halkan. and kuma jirto halkan. anaga ayaan kusoo kordhinay marka meeshay ka imaaday waan idin sheegi doonaa. 100 waa boqol iyo kow. and waxay u taagan tahay iyo. and waxay u taagan tahay iyo. 101 boqol iyo kow. 101 boqol iyo kow. 100 markaad qortid waxaad ku xijinaysaa and kadib waxaad ku xijinaysaa tirada ku xigta. si aan u qorno boqol iyo soddon. boqol iyo soddon waa boqol lagu daray soddon. boqol lagu daray soddon. kaliya waxaana looga baahan yahay inaan garano sida loo qoro boqol oo ah 100. boqol waxaa loo qoraa 100. boqol waxaa loo qoraa 100. soddon waxaa loo qoraa 30. soddon waxaa loo qoraa 30 oo aan horey usoo baranay qaybta hore ee casharkan. markaan isku xirno waxaan qoraynaa kow waxaan qoraynaa 100 kadib waxaan ku xijinaynaa and kadib waxaan ku xijinaynaa 30. marka wuxuu noqonayaa numberka 130. 130. 100 waa boqol and iyo 30 soddon waa boqol iyo soddon. 130. boqol 67 si aan u qoro waa boqol lagu daray 60 lagu daray 7. boqol lagu daray 60 lagu daray 7. si aan u qoro numberkan qoraal ahaan waxaa la iga rabaa inaan garto sida loo qoro boqol, sida loo qoro 60, sida loo qoro 7. boqol sida loo qoro waxaan kusoo baranay qaybta hore ee casharkan. 60 sida loo qoro waxaan kusoo baranay qaybta hore ee casharkan.
toddoba waxaan ku baranay sida loo qoro qaybtii koowaad ama part 1 numbers oo ahaa casharkii 22aad. Okay, boqol waxaa loo qoraa 100. boqol waxaa loo qoraa 100. lixdan waxaa loo qoraa 60. lixdan waxaa loo qoraa 60. toddoban waxaa loo qoraa 7. toddoban waxaa loo qoraa 7. boqol lixdan iyo toddoba waxay ka imaaday boqol lagu daray lixdan lagu daray toddoba. boqol lagu daray lixdan waa boqol iyo lixdan lagu daray toddoba waa boqol lixdan iyo toddoba. Okay, waxaa laga rabaa marka sida loo qoro boqol oo ah 100, sida loo qoro lixdan oo ah 60, sida loo qoro toddoba oo ah 7. markaan isku xiro numberkan wuxuu noqonayaa 167. mar walba markaad qortid 100 ku xiji and. mar walba markaad qortid 100 ku xiji and. waayo markaan ku aqrinayno luqadda Soomaaliga numberkan wuxuu noqonayaa boqol iyo lixdan iyo toddoba. boqol iyo lixdan iyo toddoba. markan halkan waxaa soo galaya and oo ah iyo 167. 167 boqol iyo lixdan iyo toddoba. boqol iyo lixdan iyo toddoba. si aan u qoro boqol sagaashan iyo sagaal waxay la mid tahay boqol lagu daray sagaashan lagu daray sagaal. boqol lagu daray sagaashan waa boqol iyo sagaashan lagu daray sagaalna waa boqol sagaashan iyo sagaal. si aan u qoro waxaa laga rabaa inaan garto sida loo qoro 100, sida loo qoro sagaashan, sida loo qoro sagaal, kuwaas oo aan horey ugu soo baranay qaybta hore ee casharkan. boqol waxaa loo qoraa 100. boqol waxaa loo qoraa 100. sagaashan waxaa loo qoraa 90. sagaashan waxaa loo qoraa 90. sagaalna waxaa loo qoraa 9. sagaalna waxaa loo qoraa 9. markaan isku xirno numberkan wuxuu noqonayaa 100. kadib waxaan ku xijinaynaa and oo ah iyo 99. and ku xiji kadibna kuwan kale ku xiji 99. sidan ayuu noqonayaa marka 199. 100 boqol and iyo 99 sagaashan iyo sagaal. 199. Okay, waxaa dhiman nambaro tiro badan ayaa dhiman waayo halkan waxaan ku bixinayay kaliya tusaale. marka kuwa kale adiga ayaa laga rabaa. arday walban waa looga baahan yahay inuu soo qoro. maalimahan exercise-ka waxaan ku soo darayaa muuqaalka waayo waa nambaro afka hadii laga sheegan waa la soo qori karaa. afka hadii laga sheegan waa la soo qori karaa. marka arday walba ha soo qoro nambarada dhiman laga bilaabo 30 ilaa 200 mise 30 ilaa 199. This is the end of our today's lesson. casharkeena maanta halkan ayuu nooga dhan yahay. waxaan idin rajaynayaa guul. Bye bye. See you in the next lesson. Goodbye.